وأوجدين إلياس عرفة إيد هري إيدان فرق معها مغالة سلوك بعد براوة أوجدين إلياس iyadoo ay ka harsan tahay saacado kooban ayaa suuqa weyn ee magaalada xeebta Baraawe caasimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya laga dareemayaa diyaar garoobi ugu dambeeyay ee maalinta Ciid al-Adha oo ay ka harsan tahay saacado kooban suuqa ayaa ka duwan maalmihii kale suuqyada lagu iibiyo xoolaha sida ariga lo'da geela ayaa sar u kac balaaran laga dareemayaa maadaama ay food nagu soo hayso maalinta Ciid al-Adha halkani waa fornada bin Qasim oo ah fornada ugu shidan magaalada xeebta Baraawe caasimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa kan qaar ka mid ah shaqaalaha oo la hadleen warbaahinta TV-ga Som TV Soomaaliya waxaa la joognaa kabtanka xogeenka waa kan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا محمد محمود كابتن كوحة أنا أو كهلا لغدي ده يا وحن شوقا شركة محمد ما يغصن يا كرينو زعبلدان والله واحد سوكوي كرما سعد اوكي عاد ما انت ايد يو وقتي كلام ما فرق ودحيو والله واحد بدن او دحي صاحب بس مالما عيد وجيدا وحي بالقموده ماشان اسو كينا شغال سينا صح وشقيستان فانتي مالما كلنا واتورنا وحينا واكا حول بن قاسم كسو دوا صاحبيال انت كنت وش اسعارته انت لقى حافظ ضيح magaaladii way degmada Baraawe haddana waxaan joognaa qaybta buskudka aan joognaa waxaan la joognaa walaashiina iyo ku bilaabaysa magaciisa saddexaad أنا كبلاوي مجلس ده رقية قاسم وعاجوكنا قيبته وشيدن فورنا ده بقاسن شاقونا بسكوت كأجوا عن بسكوت كزويب كعنك بسكوت كقيبته بسكوت كما شاء الله وهل حافظ الضيع وقتي كلا إيد وقتي إيد أهل مع فرق نحيو ولا شيء وقت على وقت جيلو بعد ما معانك الديار ولا هلا كرا waxaan joognaa degmada Baraawe xaafadda Dayaxaan joognaa oo u jeedo buskudka ugu shidan adaarabtid xaafadda Dayax oo imaa adaarabtid buskut zawiib adaarabtid ucun adaarabtid waxa la heli karaa isdii kartaa ado waxa tadoo nooca waa la heli karaa buskut iyo maxaa kala dubtiin buskut waa dubnaa buskudka zawiibka waa dubnaa ucuna dubno waxa dubnaa garshaato shushuumo waa la hela maano waa la hela wax la waana rooti hawlo kulul hawlo loos haw rooti waa lagu daramiyaa rooti asxaabta aan meesha waxaan ku ogaa soo xabla la sameeynaa haddana waxaan arkay markaas safarkan imaado oo waxaan u jeedaa shan nooc oo kala gooniya u jeedaa buskuda la helaa ma macaan wixii ma macaan laayo dhan waa keelay rooti lagu soo darsado waxdii adoo beerka soo gado rooti kuleel ma foornada qaasim sheekuna saddex nooc rooti oo fresh ah bukeya la helaa rooti baan oolaya la helaa waa u jeedi maano halka foorno ugu shidan degmada Baraawe xaafadda Dayax asxaabtana la socdaa subaxdii rooti kulul dadkii Baraawe degan imaada rooti kulul ahliisa subaxdii laba sac diyaar waa rootiga haweenkiina adaartiina waa hele foornada ugu shidan degmada Baraawe waay asxaabtana la socdaa si kastaba yeeshee maalinta ciidda ayaa la filayaa in ay ku aadan tahay maalinta beriya ay taariikhdu ay tahay 22 bisha 7 oo maalin talaada ah siyaasi Jaylaani Maxamed Oofo oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Tunishan Gamas oo muddadii ugu dambeeyay uu ka sugnaa magaalada xeebta Baraawe caasimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la hadlay warbaahinta TV-ga Som TV Soomaaliya oo la diray hambalyoos ummadda Soomaaliyeed oo dhan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن رواء إن هل كان كسو جيديو عيد أضحى أو بريء يكون بيغان تهي أن أسو جيديو همبليو dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guud ahaan gaar ahaan reer Koonfur Galbeed hoos markaan u sii dhaadhaco reer Shabeellaha hoose khaasatan caasimadda Koonfur Galbeed degmada Baraawe waxaan idin leeyahay hambalyo ciid wanaagsan ku ciida caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo intaas markaan ugu baxo ciidda aan weli ciiddii ku jiro waxaan
idinkaga sidaa salaan sare suldaanka guud ee beesha tunni beelaha tunni isla markaasna ah la taliyaha dhaqanka ee madaxweynaha koonfur galbeed lafta garan waxaan idinkaga wadaa salaanta islaamka 114 ah cadada qur'aanka wuxuu halkan salaan oo ciida ku saabsan u soo gudbinayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan salaadiinta Soomaaliyeed oo dhan wuxuu idin leeyahay ciid wanaagsan ku ciida caafimaad iyo bashbashi barwaaqo ciidan ciideedana ilaahay hanagu gaarsiiyo caafimaad iyo cumri dheeri iyo horumar gaar ahaan wuxuu leeyahay madaxweynaha Cabdicasiis lafta garan madaxweyne waxaan kaaga sidaa suldaanka guud beelaha tunni golweyn ilaa golweyn gaar ahaan curudka digil mirifle salaan diiran 114 cadadeeda ay tahay oo ku saabsan ambaliyada ciida ah naga gadoon mudan madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa baarlamaanka koonfur galbeed golaha wasiirada dhammaan inta ku nool maamulka koonfur galbeed meel kasta ay joogaan waxaan idin leenahay suldaanka wuxuu idin leeyahay suldaankiina ku ciida ciid wanaagsan bashbashi barwaaqo farxad reen iyo horumar intaas markaan ugu baxo waxaan rabaa in aan laba kelmo aan ku darsado aniga ahaan deegaankayga baraabe aan hadda ku suganahay aan ka mid ahay wafdiga la socday suldaanka guud suldaan xeedar suldaan suuf saamuunye waxaan leeyahay deegaankaygii hambalyo ciid wanaagsan ku ciida shacbiga dhammaan odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhalinyarada culmaa udiinka booliiska militariga amisom iyo inta wanaaga jecel oo halkan ku nool degmooyinka tuulooyinka kulli ciid wanaagsan ay leenahay bashbashi barwaaq ku noolaada caafimaad ku noolaada waxaan rabaana inaan idinku gubaabiyo midnimada ha lagu dadaalo ciidan ciideeda waxaan ilaahay ka baryayaa annagoo midaysan mid ah oo deegaanka samata bixinayno badbaadinayno min degmo ilaa tuulo ilaahay idinkiisa ilaahna gaarsiiyo kulligeeni bashbashi barwaaqna ilaahay noo kaso aan la dadaalo ciid wanaagsan hambalyo bilaa tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa kan gudoomiyaha dhalinyarada degmada Barawe caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Zakariya Maxamuud Maxamed Zakari Baba oo la hadlay warbaahinta TV-ga Som TV Soomaaliya bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah halkan waxaan hambalyo ugu dirayaa Soomaali weyn meel walba ay joogto dal iyo dibad qaasatan reer koonfur galbeed dhalinyarada qaasatan oo ku nool degmada Barawe aan mas'uulka ka ahay waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum biqeer ma sha Allah sama ku iida si oo ummadda kale idinkiga arkaan farxadiina ay damcaan ay sidii ku imaalahayn Barawe reer Barawe dhalinyarada waxaan dhihi lahay bilicda magaalada si fiican haloo shido ciid hala muujiyo farxad ha lagu wada ciido insha Allah sanadkiisa dambe ilaahay samaha nagu gaarsiiyo waxaan leeyahay hambalyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin ciid hala soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Cabduqaadir Maxamed Faaqi TV-ga Som TV Soomaaliya Barawe gobolka Shabeellaha Hoose